waxaa qof walba oo ah muwaadin Soomaaliyeed saaqday naacaw wadaninimo leeyr qabow oo caafimaad markaasa mid kucleeya iyo mid kadleeyaba u xidhxidhay in uu soo arko caasimadii dhulka hooyo ee Muqdisho. halkani waa garoonka diyaaradaha aadan cad ee caalamiga ah. garoonkani wuxuu tusaale wanaagsan u yahay oo uu fafaalo qurxoon ka bixinayaa magaalada uu ku yaalo ee Xamar Caday Muqdisho. markaan ilmug leh ku eegay habsami u socodka shaqada garoonka, qalabka casriga ah iyo adeegyada kala duwan ee loo darbay socdaalayaasha ayaan fahmay fariinta uu garoonku gudbinayo oo waxaaba uu leeyahay hadda baan caalami ahay, adduunkana la jaan qaaday. waxaan markii ugu horeysay noloshayda cagta soo dhigay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo aanan weligay arag. halkan dadku way wada faraxsan yihiin, niyadda ayaana u dhisan, noloshuna si caadi ah ayay u socotaa. subaxdii ubadku malcaamadaha quraanka iyo goobaha kale ee waxbarasho ayay u jarmaadayaan, xoogsataduna goobahooda shaqada. 20 sano in ka badan waxay Xamar la ildarnayd waxyeeladii dagaaladii sokeeye kaasoo gayeysiiyey burbur laxaad leh oo ay u weheliyaan qax joogto ah, abaaro iyo garashooyda waa colaad sokeeye. mar baan ku calaacalay ma nasiibkayga xumaaday oo maxaan u calafsan waayay maalmihii Muqdisho ay nabadeedu sareysay, magaceedu kor ahaa, cududeedana laga haybaysan jiray. laakiin waxaan isu qanciyay haddaba jidkaas ayaa jaanta lagu hayaa ee dulqaado. waa markii ugu horeysay ee aan jirahay joogahay jaanta soo dhigo Xamar Caday. Muqdisho waxaa ka jirta nayaayuro wanaagsan markaad aragto niyad wanaaga hooyooyinka, dadaalka ardada dugsiyada iyo jaamacadaha, dawladda iyo barnaamijyada dibudhiska, heeganka ciidanka qaranka iyo saaxiibada Afrikaanta ah. idaacadaha la dhageysto iyo kuwa la iska arko ee u carbisan baraarujinta iyo hanuuninta qaranka. waxaa kale oo ku soo jiidanaya tamashlaynta ka socota xeebta Liido iyo dibudhiska ku socda hoteelada nasashada iyo shirkadaha adeegyada kala duwan qabanaya. haddii aad Xamar ku noolayd 20kii sano ee ugu dambeeyay oo ay dhagahaagu la qabsadeen jabaqda iyo daryanka rasaasta, haddii xilligan aan joogo aad ku sugan tahay Muqdisho oo aad maqasho jabaqda qaw qaw qaw, hadda la soco waa fuundi isku garaacaya musmaar iyo alwaax oo guri dhisaya ee ma ahan codkii dhigahaagu ay barteen ee daryanka madaafiicda iyo rasaasta. Xamar oo burbur xoogani soo gaadhay 20 sano oo la soo dhaafay, hadda waxay siisaa farxad dadka ku nool gudaheeda, wejiyadoodana waxaa ka muuqda niyad wanaagsan oo adkaysi leh. haddaba maxaan ku tilmaamaa Xamarta maanta? ma waxaan idhaahdaa waa xeego oo xurmo iyo xanafba way taallaa, mise waxaan idhaahdaa waa sida misigtii la falfaliyey oo laf iyo cadba way leedahay, mise sida dadka guraaca wax u eega ayaan idhaahdaa Xamar waa xarunta madeganayaasha Geeska Afrika? maye aan idhaahdo Xamar Caday barasho wanaagsan.